waxyaabaha inoogu qiimaha badan leh ictiraafku laakiin dad eegto miisaaniyadda arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda ma buuraa markaan yaraan waxaan jeclaa runtii inaan waxyaaba badan inaan noqdo mar waxaan jeclaa dhaktar inaan noqdo mar inaan askari noqdo sarkaal baan jeclaa berigaa saraakiisha niman dhalinyaro oo darees qurux badan sita ayaa suuqyada marmari jiray markaa runtii waxay inspiration miyad shaqadii aad labada madaxweyne haddaan ku noqono labadaba waad la soo shaqaysay miyay dhacday inaad shaqada ku kala aragti doonaataan ama aad isku khilaaftaan wadaniyad badan baa runtii berigaa igu jirtay laakiin markaan airportkii ka degay xamar baa baasboorkaygii markaan dhiibay waa ninkii saas ku weegay baasboorkii wuu igala hadhay marka sabab igala hadhay runtii ma garanayni waayo baasboor qofka hadii iska leh waa property qofku isugu leeyahay sifa aan sharciyan lagama qaadi karo marka dee baasboorka waxaa ku qoran burcu ku dhashay wallaahi dee kolley qofka dee boqolkiiba boqol wax walbaba iskagama aragti noqonaysaan maaragta dabcan dee madaxweynuhu isagaa boosa tiisuma soconaysa marka u dambeysa marka rabitaankii waynu haynaa waxaynu doonaynaa inaynu ictiraafo caalamkana ictiraafo laakiin aad ugama inaan hawlgelin waxaan loo baahan wax badan ka bedelo runtii waxaa loo baahan runtii campaign weyn sidii dunida aynu isu bari lahayn aynu uga dhaadhicinayn xaqaynu u leenahay in laynu ictiraafo harun mari mayno intaaynu dadka ku kala saarayno gacan qabasho iyo mataqan ehelnimo iyo qaraabanimo intaynu aynu duudsiyeyno xaqa uu leeyahay ciddii xaqa u lahayd runtii horumarkeenu hana qaadi maayo عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامجكني خبرة وداق كلن كيسي أفريا لباتنات وحعاو مرتين وقوة وسير هراء دكتور سعد علي الشري وبرنامجكني نقوله وداقي دونا خبرة ديسا يوايا رقنمة ديسا برنامجكني وجهد كوينيسين مرار بدن شاقني وإن كل بدتك خبرة يوايا رقنمة دلي aynu weydiino wixii caqabada ka hor yimi nolosha iyo sidii ay u xaliyeen maxaa ay qalad sameeyeen maxaa ay sax sameeyeen fursadaha sideebay uga faa'iideysteen innagana tala maxayna siinayaan ujeedka u dambeeyna waxa weeye maxaynu kaga dayan karnaayo wanaagsan caawa waxa inala joogaa khabiir haddii khabiir un marar badan loo yiri jiray Sacad wuxuu ka mid yahay dadka ugu khabiirsan waayo waxaan halkan ku weydiin doonaa khibrad 50 sano ah 50 sano wuxuu iskugu jiraa waxbarasho shaqo iyo adeegid bulsho iyo adeegid dawladda iyadoo isla bulshada loo adeegayo waxaan doonayaa marka inta dhan inaan wax ka weydiiyo marka u dambeysana fursadda idinkaan idin siiyo CV-giisa ma dhamayn karo laakiin haddaan dedejiyo wuxuu haystaa secondary-gii markuu ka baxay digriigii kood agriculture buu ku qaatay mastertiisii oo digriiga labaad ah waxa uu ku diyaariyey agricultural economics PhD-diina isla agricultural economics wuxuu sidoo kale sameeyey 8 iskugu jira diblomo iyo certificate oo journalism ka mid tahay economic ka mid yahay training and development bookkeeping management and accounting diploma postgraduate and Islamic banking investment management sidoo kale shaqooyinka wuxuu soo qabtay shaqooyin aad u badan ilaa 9 shaqo ah marka CV-giisa maanta dhan ka bixi maayo waqti badan bay ka qaadanaya waxaan doonayaa inaan barnaamijka galo oo aan su'aalaha toos weydiiyo marka qofka aynu wareysanayno maanta waa Sacad Cali Shire oo khibradiisa iyo wareegnimadu intaasi tahay marka koowaad intaan su'aasha ku bilaabin soo dhawow Dr. Sacad dhalinyarada aadka u quruxda badan leh salaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan runtii doonaa in mahad celiyo dhalinyarada soo qaban qaabisay munaasabadan quruxda badan leh barakallahu fiikum aan kaloo jecel intiina ka soo qayb gashaan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sacad waa ku mahadsan yahay waqtigiisa qaaliga iyo khibradiisa markaynu ka codsanay inuu ogolaado oo nala wadaago Sacad دكتور سعد سؤاشيدا كواد waxay tahay 1974 laga soo bilaabo ilaa 2024 marna waxbaad baranaysay marna waad shaqaynaysay waa 50 sano oo shaqo waxbarasho oo adeegid bulsho iyo adeegid dawladeed bal saddex eray ku soo koob waa taariikh dheer oo saddex eray kuma soo koobi karee laakiin haddii aan skiim baro waa taas ugu horeysa magacayga Sacad Cali Shire la yiraahdaa si leedin sheegay
waxaan ku dhashay banka Aroori ee Burcawdhow waa laga yaabaa inaad taqaanaan in badan ka mid ah nolosheeda inta hore waxaan ku qaatay miyi ka sokow magaalada Burco iyo tuulo la yidhaahdo Waraabe oo hawd ku taalla laakiin waxbarashadeeda intii dugsiga hoose dugsiga dhexe waxaan ku qaatay magaalada Sheekh waan ku qaatay markii aan dhameeyey secondary-ga 1974 nus qarni baa kasoo wareegaan malanaya markaa alxamdulilah waxaan ka galay secondary-ga Sheekh dugsigii dhexe iyo dugsigii sareba markaan dhamaystayna waxaan tegey magaalada Muqdisho Xamar waxaan galay jaamicaddii nationalka ahayd Soomaaliya waxaan galay beeraha ayaan galay horta markaan yaraa waxaan jeclaa runtii inaan waxyaabo badan inaan noqdo mar waxaan jeclaa dhakhtar inaan noqdo mar inaan askari noqdo sarkaal baan jeclaa berigaas saraakiisha niman dhalinyaro oo darees qurux badan sita ayaa suuqyada marmari jiray markaa runtii waxaa inspiration marna waxaan jeclaa beeraha inaan barto inkastoo runtii background beeraha baanaan lahayn anaka runtii xoola dhaqatanahay laakiin alxamdulilah wixii daan niyadda geliyey in ilaahayna ii aqbalay kulliyadda beerahan galay laakiin ka hor intaan dub u yara noqdee secondary-ga markaanu dhammaynay beriga xalana la geli jiray xalana meel aad u dhib badan bay markaan laba wiig joogay anigoo leh talo ilaah yaa kaa kaxeeya meesha marun baba maalintii dambe intaan la soo feereelayay arday la xaadiriyaan ku jiraanu la yidhi waxaad tegaysaan Kuuba waxaa soo baran doontaan beeraha khaasatan dhinaca qasabka amba sonkorta ayaa soo baran doontaan alxamdulilah waxay noo ahayd runtii farxad weyn bay ahayd Kuuba waxba kama aqoonin laakiin diyaarad baa la raacaya iyo xalana laga baxaya labadaa shay baa aad iyo aad aniga iigu weynaa Kuubaanu tagnay waxaanu baranay af Spanish waanu sanadhan baranaynay markaan u dhamaysanay af Spanishkii jaamicaddan galay jaamicadda beeraha Havana University dabeedna nasiib daro 1977 ayaa waxaa dhacay dagaalkii inankii Ethiopia Kuuba waxay la soo safatay Ethiopia la soo safatay marka xiriirkaynu kala goosannay annana waxaanu dalbanay in nala celiyo markaa waa nala soo celiyey waa 1977 xamar baanu ku soo noqonnay waa nala qaybiyey qaarkeena waxaa loo diray scholarships Yuruba qaarkeena jaamicadii baanu galnay waddanka anuu jaamicaddii beeraha ayaad gashay ayaan galay marka labadii sannadood ii hadhana waa la ii tixgeliyey labadii sannadood ee Kuuba aan ku baranayey labadii sannadood dambe ayaan dhammaystay laakiin intaanan jaamicadda gelin haddana dubba waxaan u bilaabay af Talyaani markii horena af Spanish baa khasab nagu ahaa markii dambena af Talyaani af Talyaani waa iska baranay labadii sannadood waa dhammaysanay marka berigaa caadadu waxay ahayd ardayda ugu sarreysa sanad walba waa la reebi jiray si loogu diyaariyo macallimiin Talyaaniga loo diri jiray 2 sannadood bay maqnaan jireen markay soo dhammaystaana way soo noqon jireen oo jaamicadii wax ka dhigi jireen anigu waxaan ku jiray intii la reebay dabeedna waxaa yimi scholarship maraykanku ina siiyey oo la odhan jiray afkiraad liiska kumaan jirin dadkii u tartamayey inkastaan sidaa xaq baad u lahayd marka qoladii qaadaysay imtixaanka runtii nin bay xasay igu yidhi yumaad iska taraagarays waad weydiisana ku ogolaadaan maxamed faarax Shirdoon loo odhan jiray mana wasiirka ahaa xamar sidii baan sameeyey qoladii baan u tegey odayaasha ahaa gacanta ku haysay arrinka waxaan fadlan ii ogolaada way ogolaadeen imtixaan baan galay interviewna waan galay waan helay markii dambe maalintii laygu yidhi waxaad heshay scholarshipkii Maraykanka runtii waxayd maalmihii igu farxadda badnaa ayay hayd ha ma degree buu ahaa scholarshipkaasi mise master master buu ahaa si fiican masterkii markaan dhammaystay lai ogolaaday dee ruqsadiisa haystay damac baa galay inaan sii wato ilaa PhD markaa waxay noqotay inaan fasax ka soo qaato dowladda Soomaaliya inay ogolaato way ogolaadeen jaamicadduna waxay siisay scholarship alxamdulilah dadna waxaan dhammaystay 2 sannadood hore
iyo labadii sannadood saddexdii sannadood dambe ee PhD-ga markaan ka soo baxay jaamacadda aan dhamaystay arrinkii shahaadadii PhD-ga waxaan shaqo ka bilaabay World Bank Washington DC waan shaqo ka bilaabay haduu sanad iyo waxoogay dhowr bilood ayaan ka shaqaynaya halkaas marka xaaladdu markii adkeyd bay Soomaaliya laakiin runtii sidaa ulama soconin dabeedna waan iska noqday 88kii waan jeclaana waddankeena ku noqdo waxna ka qabto waddaniyad badan baa runtii beriga igu jirtay laakiin markaan airportkii ka degay xamar baa baasaboorkaygii markaan dhiibay baa ninkii saas ku weegay baasaboorkii wuu igala hadhay marka sabab igala hadhay runtii ma garanayni waayo baasaboor qofka haddii iska leh waa property qofku isugu leeyahay sifa aan sharcigan lagagama qaadi karo dabeedna wuu iga reebay markaa dee baasaboorka waxaa ku qoray burcu ku dhashay waxaan u aanay baasaboorkii waxaan u aanayay burcu ku dhashay marka suuqa markaan soo galnay runtii waxaan arkay xaaladii isbedeshay dabeedna waxaan ka hawlgalay sidii aan dib u noqon lahaa sanad bay igu qaadatay inaan helo baasaboor iyo visa cumro ah dabeedna viisadii cumrada ahay iyo baasaboorkaygii baan qaatay waan ka baxay sacuudigaan tegey bil baan joogay waxaan uga gudbay masar beriga haddaad Soomaali tahay looma baahnin visa inaad u qaadato masar waad ka degaysay ها توس مع العراق صح لكن مركان كدقي ايربورتكي انا يعني فلسطينيه انا رقبتي ايربورتكي ولا تكون قبطي ايربورتكي مصر هي ميل بنا لفريسي انتروجيشن انا لا قالي مركي دمي وين سيده الحمد لله يا نواد قشين مركان مصر بان قالي انت سعوديه انت جوغي aad bay ugu adkayd laakiin masar iska noqday waddankii kala si fiican wax dhibaato aan lahayn mashaqad markaa ka bilowday masar markaad gashay maya waxaan ku sugayay visa Switzerland sax markii dambe viisadii baa soo baxday Switzerland baan tegey bilaan joogay markii dambe waan ka tegey Ingiriiskan tegey marka halkaasaan ka bilaabay haddana nolol kale si fiican haddaba taa intaynaan gelin shaqadii ugu horreeyay qabatay maxay ahayd horta shaqadii ugu horreysay shaqo may ahayn laakiin runtii shaqo wiyaal mid ah markaan ahayn standard 4ka ayaa beriga waxaa yaraa macallimiinta dabeedna waxaa lagu buuxiyey dhalinyaradii ku jirtay form 4 oo la yidhi wax u dhiga intermediate marka waxaan u dhigi jiray kalaaska 8aad waxaan u dhigi jiray intermediate geography iyo maths baan dhigi jiray 3 bilood baan u dhignay 3 bilood marka dhamaatay baa 300 oo shilin la yidhi berigaas 300 oo shilin lacag aad fara badan bay 300 oo shilin dalxiis baan ku tegey 300 shilin baad dalxiis ku geynaysaa dalxiis bay geynaysaa gaari baan raacay laa ceeri gaabo ayaan ugu jecay cid ka garan maayo laakiin waan iska jeclaan jiray inaan tago ceeri gaabo taasay shaqadii ugu horreysay lacag laygu siiyey markii dambe jaamacadda markaan ka baxay waxaan ahaa dadkii lagu reebay jaamacadda sida markii hore baa yidhi si fiican ka mushaar baa deena loo qoray runtii yaro system baa lecture baan markii dambe dee aan tegey Maraykan labada sanadood hore scholarship baan ahaa laakiin intii ka dambeysay research assistant baan ahaa oo lagu siin jiray mushaar iyo tuition kale laga bixin jirayna same time si wanaagsan aan ku sii soconay markaad Maraykan tagtay marna waxbarashaad ku jirtay marna waad shaqaysanaysay labadaas aad isku waday oo jaamacadda waxa laga siiyey shaqo ah inaan la shaqeeyo nin professor cilmi baara research assistant baan ahaa marka wixii la siinayay baa ii gooyay tuition kana inaan iskaga bixiyo isla markaana waxaan ku noolaado ay iga soo haraan halkee taana uga sii gudubtay markaad muddo shaqadii markaad dhamaysay World Bank kan lacag ayaan ka helay shaqo markaan dhamaystay sanad baan ka shaqaynayay iyo bilo waan noqday xamar baan ku noqday jaamacaddii baan ku noqday shaqada uga bilaabay shaqada uga bilaabay laakiin maadaama mushaarku yahay beriga mushaarku waxaa 1200 oo shilin 1200 shilin miyay u dhigmaysa $1200 imika ma sarifkuna wuxuu ahaa 300 oo shilin halkii dollarba marka mushaarkaygu wuxuu $4 buu ahaa gebigiisuba $4 buu ahaa marka runtii maanan doonan jirinba laakiin dee si dabcan noolaadan u baahanahay
waxaan shaqo ka bilaabay oo aan consultant ahaan loola shaqayn jiray xafiiskii World Bank maadaama xiriir hore naga dhexeeyey markii u dambeysayna shaqan ka helay FAO National Officers baa la odhan jiray marka anigoo FAO ka shaqeeya World Bank-kana as a consultant u shaqeeya jaamacadana ka shaqeeya maalinta dambe dee uu soo baxay viisadii iyo baasaboorkii waan ka haajiray ingiriiska markaan tegey waxaan go'aansaday in 2 sannadood aan u shaqeeyo dadkeenii qaxootiga ah ee dulcad joogay iyo xarshiniyo marka waxaan ku biiray urur iyo runtii igu horreeyey oo ay asaaseen xasan ismaaciil iyo kii ahaan jiray wasiirka caafimaadka marka halkaasaan full time ka shaqayn jiray 2 sannadood mushaar kuma qaadan jirin laakiin dalkaan u shaqaynayna waxaan u ururin jiray lacag aanu siino daaweyn iyo qalab dhakhaatiirtii markaa daryeeli jirtay dadkeenii qaxootiga iyo dee mujaahidiintiiba marka jimco axad walbaba suuqaanu geli jiray daasad baanu qaadan jiray dadkaanu weydiisan jiray inay lacag noogu shubaan dee dawarsi camal oo kale laakiin waa dawarsi dadka lagu horumarinayo namay dhibaynin si wanaagsan dadka qaar baa ku caayaya qaar baa mataqaana dee ku dhibaataynaya waxa waynu isaga adkaysan jirro waxaa ka weynaa oo dee xaggeega ka muhiimsanaa hadafkaanu ka lahayn iyo shaqada ummadda loo qabanayo 2 sannadood markay dhammaadeen runtii waatii waddanka lagu soo noqday dabeedna markaas baan bilaabay shaqo caadi inaan doonto shaqadii iigu horreysay waxay ahayd insurance si fiican interview baan nala ka qaaday imtixaan baan u galay waan ku soo baxay marka shaqada insurance waxay u shaqaynaysay waxaa la yidhi bishii waxaa leedihiin 300 oo shilin wixii kale aa keentaanna waxbaa laydinka siinaya marka 300 oo gini beriga bishii aad bay u yaray runtii shaqada insurance-kuna waa shaqooyinka ugu adag weeye markii nala tababaray waxaa la yidhi waxaa kaga bilaabaysaan ehelkiina iyo asxaabtiina inaad ka iibisaan insurance-ka inana dhaqankeenaba maaha qof ma odhan kartid maxaan idhahdaa markaad dhimato waxaad dadkaaga uga tagto baa lagu siinayaa iminka bil walbaba accountka intaa ku shub akoone maxaa maanta la joogaa markaan dhinto maxaa markaan dhinto waa meesha keenay soomaaliduna waxay ku mahmaa nin dhintay kabihiisa dhaama marka runtii way adkaatay waan ku guulaysan kari waayey inaan dadkeenii ka iibiyo insurance marka shaqadii waan ka tegey shaqooyin kale aan raadsaday shaqooyinkan raadsaday waxaa ka mid ahaa shaqo ka soo baxday kambaniyadan nadiifiya jidadka marka anigu shaqun baan doonayo umaan kale aaba yeelaynin shaqadan miyay fiican tahay mise waxaan markii aan xeraystay applicationkii shirkaddaas amba positionkaas waxaan ku qoray CV-geygii waxaan haystaa PhD waa khaladkii ugu weynaa aan sameeyey waa de overqualified baana haddaan markii odhan lahaa waxaan haystaa maxaa shahaadada dugsiga sare shaqada waan heli lahaa laakiin PhD baan sitaa deedna overqualified baad noqonaysa markaad dhacay shaqo ku siin mayso marka daris baan bartay in markaad shaqo doonayso aad maxaan idhahdaa aad isku beegto shaqadaad doonayso iyo CV-gaaga inaad hal CV keliya yeelan maogtahay CV-yadu ay bataan oo mid walba shaqada aad doonayso dee in munaasib ku ahaado aduu markii dambe hay-ad kale baan u shaqeeyey oo caawisa businesska cusub amba ganacsiga cusub la curiyo iyo hay-adaha bilowgoodaba 5 sanaan ka shaqaynayey markii dambena hay-ad samafala Oxford House la yidhaahdo ayaan ka shaqayn jiray ilaa iyo 2001 aad markaa dahabshiil ku biirtay markaasaan 2001 baan ku biiray dahabshiil markaa waxaan mas-uulka dahabshiil ee dalka ingiriiska iyo waddamada Yurub baan ahaa 10 sanaan ka shaqaynaya halkaas runtii shaqo adag bay ahayd way berigaa waxaanu ku beeganay 9/11 berigii hore intii 9/11 ka horreysay isu socodku wuu fududaa waxba laisma weydiin jirin waa la isqaabili jiray intii ka dambeysay runtii aad bay u adkaatay haddaan sheeko yaro aan soo dhaafay inaan dibidi ku yaro celiyo markaan berigii hore tegay Maraykanka waxaan ka degay airportka LaGuardia la yidhaahdo ee New York markaan intaan dhexda ku sii socday ayaan baasaboorkaygii shindada geliyey markaan immigrationka yimi ayaa la yidhi keen baasaboorkii
waxaa baasaboorkii maayo shandadii ku jiraa marka badooneedii way haysay waxaana baasaboorkayga dee haysteen shanda ku rida may ahayn laakiin alxamdulilah berigaa maadaama wax walba iska fududaayeen layma odhan waddanka geli maysid amba layma carqaladaynin waxaa laygu yidhi daadeg shandadaada soo qaad ka soo saar baasaboorka soo noqo sidii baan yeelay waan iska dhaqaaqi karayay markii dee haddaan doono laakiin sidii baan yeelay bas waxaa ku tusinaysay sida caalamku isu bedelay markii intii ka dambeysay 9/11 taasna way saamaysay xawaaladda iyo shaqooyinkii soo dirista lacagaha intii dhibaato badan baa ayaa naga soo gaadhay laakiin alxamdulilah wixii shuruudeen noola ka baahnaa waanu buuxinay shaqadiina waanu ballaarinay ilaa iyo 2010 halkaasaan doonaya haddaba inaan intaanan halkaas oo kale wareeg baa dhici doona waa markaad shaqooyinkaa ka soo guurayso siyaasadda ayaa bilaabmi doonta soo maaha inaad dowladda u shaqayso 2010 markaad dahabshiil wixii aad ku kordhin karaysay ku kordhisay su-aasheeda koowaad marka waxay noqonaysaa ma adigaa siyaasadda soo doontay mise dowladdu iyadaa ka soo doonatay siyaasaddu iyadaa soo doonatay sidee kuu soo doonatay anigu kulmiye maan ahayn xisbiba maan ahayn iska dee muwaadin un baan ahaa runtii dalkiisa jecel in wax u qabtana jecel laakiin markii doorashada kulmiye helay bishii May bay ahayd baan u malaynaya 2010 ayaa maalin waxay la soo hadlay allah u naxariistay Axmed Siilaayo iyo Marwo Aamina ayay la soo hadlay waxaan jecelahay inaad nala shaqayso oo booskaa ka shaqayso maxay kula tahay haa iyo maya ma odhanin waan soo tashanaya ma odhanin reerkii aanu saragna ma odhanin waxaan waa maqbuul waa runtii aad baan u jeclay in dalka wax u qabto inaad maqbuulo degdeg u tiraa maxaa sababay maxaad uga yara fiirsan weyday wallaahi doorta waan jeclay waa fursad qaaliya bay ila ahayd markaas inuu arkay anugu si wanaagsan markaa fursadda qaaligeed halluun baan isiri markii aad timid ee aad wasiirka noqotay wasaaraddii lagu dhiibay waxaad wasaaradda qorsheynta soo ma ka waran wasaarad nooceed u tagtay horta runtii wasaarad dhisan baan u yimi nin la yidhahdo Sanyare oo u shaqayn jiray UN-ta ayaa aniga iiga horreeyey wax badan buu runtii ka qabtay anna halkii aan ka soo gaadhay baan kasii bilaabo kasii ku dhisay intii kalena marka intaan joogay wasaaradda runtii waxyaabihii noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa amba ugu horreeyey inaanu dejinay himilada qaranka ama visionka inaanu visionka define garaynay iyo qorshe qaran oo 5 sanadooda inaanu samaynay ayaa runtii waxyaabihii ugu waaweynaa ahaa waxyo cusub xagga maaragtay waxyaha waanu ku soo kordhinay xeerka hay-adaha samafalka waanu soo saaray xeerka statisticska waanu soo saaray waxaan bilownay xafiis ka shaqeeya xidhiidhinta hay-adaha samafalka waxaan bilownay forum ay isugu yimaadaan dowladda Somaliland iyo deeq-bixiyayaashu ka runtii waxyaabo fara badan baan ka qabanay imisa sanaad joogtay wasaaradda qorsheynta waxaan joogay 7 sanadood baan joogay kadibna waxaad uga gudubtay wasaaradda arrimaha dibadda maya waxaan joogay 2010 ilaa 2015 ayaad qorsheynta kadibna waxaad uga gudubtay wasaaradda arrimaha dibadda haye iyadana maxaad ku dartay iyadana wasaarad nooceed u timi maxaad ku kordhisay maxaa caqabada kaa hor yimi wasaaradda arrimaha dibadda wasaarad marka la xil saaro waxay caadi ahayd waana sida sax ah inaan xog raadiyo horta marka ugu horeysa xog baad ka bilaabaysa xogta xog buuxda markaad hesho sawir baa kuu soo baxaya wixii dhiman wixii wanaagsan wixii naaqisa dibna halkaas baad ka bilaabaysaa qorshe sidii wixii dhimanna aad u buuxin lahayd ama aad u keeni lahayd wixii wanaagsan halkaad uga sii anbaqaadi ama aad usii xoojin lahayd marka marka ugu horeysa waa xog raadi marka dambena wixii kuu soo baxay ka jawaab ku dabaq wasaaradda haye taas waxaa laga yaabaa inay dabaqadaas inay ku jirto inaad dub u eegto qaab dhismeedka wasaaradda ood ku soo darto waxya markii hore aan jirin amba waxyaha qaar isuba geyso amba waxyaha qaar aad kaba tagtababa marka laba waaxood baan kusoo kordhiyay markaa wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha dibadda waaxda qorsheynta
iyo waxda communication kusoo kordhiyey laakiin intii aan joogay wasaaradda horta runtii waxaan aad uga shaqaynay missionskeena safaaradaheena dibadda jooga ilaa 10 mission ilaa 11 mission ayaanu xafiisyo u furay qaarna aanu xafiisyo ka wanaagsan kuwii hore ku jireen aanu geynay waxaan soo maray ilaa 17 waddan baan soo maray ilaa 29 event baan ka qayb galay waan uga qayb galay anoo matalaya Somaliland waxaan qoray ilaa 15 qoraal oo ku jirto taariikhda Somaliland iyo qadiyadeena iyo xaqayna u leenahay inaan ictiraafo markii u dambeysay shir weyn baan qabanay caalamiga halkan garan xaddan ku qabanay dhowr iyo 20 waddan isugu yimaadeen si wanaagsan runtii himiladan kale waxay ahayd inaan qadiyadeena baahino intii suurtagal ah marka qaarkood waxa la weydiiyay maxaa la inoo ictiraafi waayay si wanaagsan dadka bis weydiinaya way naga raagay baalku hay laakiin waxaan sidaa runtii sababta ugu weyn waxa weeye tacab badan maynaan gelin waxyaabaha inoogu qiimaha badan leh ictiraafku laakiin dad eegto miisaaniyadda arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda ma buura waxay runtii lacag intaa badan gelin marka rabitaankii waynu haynaa waxaynu doonaynaa inaynu ictiraafo laakiin aad ugama inaan hawlgelin waxaynu baahnaa wax badan ka bedelo runtii si wanaagsan berigaa ictiraafka inteed u gaadheen ma soo dhawaa والله ده هملدن waxay inaynu qadiyada gaarsiino dadka wadamada ugu badan baanu gaarsiinay inka wadamada Afrika intaan berigi tagay waxa kamid ahaa wadanka Masar waan tagay wadanka Mauritania waan tagay Guinea Bissau waan tagay Guinea Conakry waan tagay Ghana waan tagay Senegal waan tagay wadamadan jaarkeena Djibouti Ethiopia Uganda Kenya Tanzania Mozambique inta waa soo maray marka inta waxaynu u tagnay runtii inaynu u sheegnay qadiyadeena inagu waxaynu u haysanaa dadku inay garanayaan qadiyadeena laakiin runtii dad badan ay garan maayaan waxaa loo baahan yahay runtii campaign weyn sidii dunida aynu isu bari lahayn waan uga dhaadhicinayn xaqaynu u leenahay in layna ictiraafo 2018 waxaa haddana lagu dhiibay xil weyn oo kale oo isagna aad u culus wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalihii waddanka oo dhan iyo lacagtii bal ka waran wasaaraddaas iyadana muddaad joogtay waa xafilaya wasaaradda adigu waqtiga dheeray horta runtii waa wasaarad aad iyo aad u muhiima oo culays badan leh waxaa ka shaqeeya ilaa 2500 oo qof baa ka shaqeeya xilka ugu weyn ee haysta waa 3 xil weeye mid waxa weeye samaynta miisaaniyadda midna waa ururinta lacagaha cashuuraha midna waa controlka amba ka warhaynta kharashka miisaaniyadda ay kharashkayaan hay'adaha iyo wasaaraduhu marka taa lafteeda runtii shaqooyin fara badan baanu ka qabanay hadday noqoto xagga dhismaha hadday noqoto xagga waaxyaha ilaa 5 waaxyood baan kusoo kordhiyey shaqadeeda ugu badnayd waxay ahayd la xiriidha 3 qaybood waxay ahayd sidii loo dhaqan gelin lahaa mashruuc la yidhahdo BFM reform dib u habaynta maaliyadda maamulka maaliyadda iyo sideen u automate garan lahayn shaqada wasaaradda si loo digitalize garan lahaa oo qofka aan u baahdeen in mataqaanaa yimaado in waraaqa saxiixo ama waraaqa qaato berigi hore waxaa jiri jirtay haddii ninka ganacsadii doonaya cashuurta inuu bixiyo macaashka inuu xafiis wasaaradda ay leedahay uu tago dabeedna uu weydiiyo cashuurta ku waajibtay uu la gorgortamo waxay ku heshiiyeen inuu la soo noqdo xafiiska kusoo noqdo meheradiisii lacag soo qaado isagoo kaash sida xafiiskii kusoo noqdo laga tiriyo rasiid la siiyo saas bayaan jirtay laakiin imika waxaanu gaadhsiinay heera qofkii inaan uga baahnaanbaba inuu xafiis yimaadaba uu isagoo halkiisa uu joogo uu garan karo ama arki karo cashuurtii lagu leeyahay dabeedna online ku bixin karo oo laga maarmaba xafiiskii la imanayay waxaanu kaloo sameynay meelo badan oo one stop shops ah berigii hore hadduu qofku doonayo inuu samaysto shirkadoo kale waxaad inuu soo maro rugta ganacsiga inuu soo maro wasaaradda ganacsiga inuu xeer ilaalinta soo maro inuu meelo badan soo maro wasaaradda maaliyadda inuu soo maro si wanaagsan 2018 ilaa 24 ayaad wasaaradda maaliyadda ka ahayd wasiir wax badan saad sheegtay waad ku kordhisay deedna xukuumaddiinnii baa dhammaatay weli xilka ma lagaa qaaday adiga
xilka qaadisma ku soo martay maya xilkii markuu dhammaadayoo lagama qaadin way ka dhammaaday waa dhammaaday marka Sacaad Cali Shire wuxuu haystaa fursadda ah wasiir la magacaabay laakiin aan xil laga qaadin alxamdulilah arrintaa kan uga mahad celinayaa labada madaxweyne ee kalsoonida ay siiyey inaan la shaqeeyo weliba kala shaqeeyo wasaaradda muhiima miyad shaqadii aad labada madaxweyne haddaan ku noqono labadaba waad la soo shaqaysay miyay dhacday inaad shaqada ku kala aragti doonaataan ama aad isku khilaaftaan wallaahi dee kolley qofka dee boqolkiiba boqol wax walbaba iskagama aragti noqonaysaan maaragta dabcan dee madaxweynuhu isagaa boosa tiisuma soconaysa marka u dambeysa annaku talaanu ku leenay mogti si wanaagsan si fiican marka taladaas xag kale haddaynu ka eegno maxaa Sacaad Cali Shire fursad u siiyey 14 sano soo maaha intaad ahayd marka la isku geeyey inaad 14 sano wasiir ahaato malaha waa wasiirka keliya ama qof kale inuu kusoo raaca laga yaabaa Somaliland qof intaa dhan wasiirka maxaa kuu suuro geliyey intaa inaad wasiir ahaato maxaad u malaynaysaa qodobo miyaadna la wadaagi kartaa si dhalinyaradu iyagana uga faa'iidaystaan oo hadhow runtii waxaan u malaynayaa nolosha wasiirka marka la isku celceliyo waa ilaa 3 sannadood ha Somaliland si wanaagsan intaa kama batan wasiiradu qaar baa sanadka ugu horeeya la bedelaa qaar baa ka labaad la bedelaa ka saddexaad afraad qaar baa shantaba dhamaysta laakiin way ilaa 3 sannadood weeye anuu nasiib waxaan u helay runtii 14 sannadood inaad wasiir noqoto inaan wasiir ahaado oo u shaqeeyo qaranka waxaan u malaynayaa waxa la bedeli waayo waa shaqo wanaag waan isleeyahay waxaana ka markhaatiya baan isleeyahay iminka ka badan baan u malaynaya ilaa 30 shahaadadood inta la siiyey shahaadihii maa waxbarashada waa shahaadihii appreciationka aniga xuska in lagu xuso la qiro shaqadaada haye qirashada shaqo marka waxaan isleeyahay shaqada ka soo baxday si wanaagsan dariskaynu ka qaadanayna waxa weeye haddii aad dadaasho oo aad u adkaysato waxaan shaqayn jiray runtii maalintii 12 saacadood 14 saacadood kama yareen intaan shaqayn jiray haddaad shaqayso haddaad dadaasho dadku way arkayaan waanay kugu abaalmarinayaan waanay kugu ixtiraamayaan mar walbaba maqaamka aad gaadhayso iyo kalsoonida aad helaysaa waxay ku xidhan tahay intaad adigu is xurmaysay intaad shaqayso laba qodob oo kale wanaagsan baa iyagana jiro dadku kugu yaqaaneen waxay ka mid ahayd lama arag Sacaad Cali Shire ama intuu miidiyaha ka hadlay sidan siyaasiyiintu ama cid u jawaabaya sidoo kale lama arag Sacaad oo reer shirinaya waana taloo malaynay in wasiirnimada cimrigeedu ku dheeraado qofku deegaankii reerkii wana saas ma hadle ha marka maqaaxiya la fadhiyo waxa la yiraahdaa hebel deegaankiisa gacantu ku hayaa dadna cimrigiisa dheeraanay ma laga yaabo inuu shaqadii qofkaasi dayacay adoon intaaba laga arag adoo siyaasi kale u jawaabaya deegaanna shirinaya haddana maxay ahayd inaad sii joogtaa mise labada ay ma noqon karaan laba qofka ku hayn kara xilka wallaahi dee kolley dadka dee inuu aflagaadeeno diinteenu inooma ogoloba maarata qofka dee madaxda waa lala talin karaa waa la toosin karaa laakiin dee sidaas lubli caydu waa xaaraan weeye marka intaasaan uga aaminsanaa inay tahay mataqaana waxaan diinteena ku habboonayn dadkan inu caayno xagga matalaadda reerka si wanaagsan si fiican waxaan u malaynaya reerka laftigiisu shaqa wanaaggaas unbay la qaatay iguma dhalin si wanaagsan aad bay u mahadsan yihiin markaa si fiican marka waxay yidhahdeen mar haddii Sacaad si wanaagsan u shaqaynayo sumcadda shaqa wanaag aynu qaadanayna si fiican reerkan dee sumcad bay u tahay isaga laftigiisa ha sumcad bay u tahay ha iminka dadku waxaa la doonayaa in reer kasta la yidhaha qofkiina ugu wanaagsan waxaad moodaa aragtidaasi inay socoto ma is leedahay sabab baad u noqon kartaa aragtidaasi in dadku yidhaahdaan war qofkiina wanaagsan aynu xilka u dirano dabcan dee waana arrin muhiima sidiisaba arrinka horumarka ayaa waxaa laga sameeyey daraasaad fara badan waxa la isweydiiyey maxaa horumarkeena maxay waddamada qaarna u dambeeyaan waddamada qaarna ay hore ugu maraan jawaabta waxay isugu soo ururtay 3 mid waa aqoon waa waxbarasho haddaba waddanku ka tacliin badan yahay uu ka hormarsan yahay ta labaadna waxay noqotay kaabayaasha amba ha noqdaan biyaha amba koronto ha noqoto amba wadda ha noqoto amba digad ha noqoto amba airport ha noqoto waa kaabayaasha
saddexaadna waa maamul wanaagga weeye. marka maamul wanaag maxaa looga jeedaa? maamul wanaag waxaa looga jeedaa in lagu dhaqmo sharciga oo meel kasta la geeyo ama loo magacaabo ama loo xil saaro qofkii ku habboonaa, tartanna loo galo. marka runtii arrinkaa maaragtay cid walba in la geeyo meeshay ku habboon tahay waa arrin muhiima oo inagaga xidhan xagga horumarka. harumari mayno intaynu dadka ku kala saarayno gacan qabasho iyo mataqan ehelnimo iyo qaraabanimo, intaynu aynu duudsiyeyno xaqa uu leeyahay ciddii xaqa u lahayd, runtii horumarkeenu hana qaadi maayo. marka halkaa waxaan ku darayaa un dhallinyarada waxaan ku gubaabinayaa un runtii in haddii ay dareemaan in aanay ku helaynin sifada sharcigaa waxay xaqa u lahaayeen, amba shaqa ha noqoteen waxbarasho ha noqotee, inaanay qancin. yacniga furaha horumarka amba guusha nolosha iyo aakhiro waxa weeye waa intaan doon in la qaybsado waxa weye qofku inuu lahaado marka hore himilo iyo hami. haddaan la hami iyo himilo lahayn meel gaari maysid. ta ku xigtaa waxa weeye himiladaada waa inaad qorshayso markaasaad u gaari lahayd. haddii kale hami un bay iska noqonaysa in qorshe jiro. markaad qorshe samayso waa inaad tacabkii la timaado. haddaad himiladii iyo qorshihii iyo tacabkii la timaado, ilaahayna tala saarato, wax wanaagsanna ka rajayso, waad guulaysanaysa. marka taas baan doonaya runtii inaan fariintaas baan doonaya inaan idin gaarsiiyo. waxaan doonayaa dhalinyarada inaan iyagana fursad siiyo, laakiin bal waxaad noo sawirtaa maalintaadu si aan u eegno waktiga qaabkaad uga faa'iidaysanaysay, maadaama dadka lagu tuhmay inay waktigooda ilaaliyaan kana faa'iidaystaan aad tahay, CV-gaana ka muuqato in dee intaas sano waxbarasho iyo ay ku jirtay. maalintaada wasiirnimo sida wakayd jadwalkayguna ceeb ahaa. horta waktigu runtii waa waxyaabaha ugu qiimaha badan leh ilaahay subxaanahu watacaala ina siiyey, waana laynagala xisaabtamaya. maalintu waa 24 saacadood, daqiiqad walba waa lagala xisaabtamayaa halkaad marisay. marka haddaad waktiga ilaaliso, waktiguna wuu ku ilaalinaya. haddaad waktiga dayacdo, isaguna wuu ku dayacaya. marka qiimeynta iyo ilaalinta iyo ka faa'iidaysiga waktigu waa waxyaabaha runtii aad iyo aad u muhiimka waa qofka u muhiimka ah, qarankana u muhiimka ah. anigu waxaan samayn jiray, waxaan ku shaqayn jiray diary aba xusuus qor. xusuus qorkaa waxay igu qoran maalin walba ciddaan arkaayo, waxaan ka arkaayo, goortaan arkaayo. haddii markaa ay shirar kale iga soo dhex galaan, dabcan waxay noqonaysaa inaan ballan kale u sameeyo. dadkeenu inta badan xagga brotocoolka waa lagaga wanaagsan yahay. dadka iyagan kula ballansanayn bay ku imanayaan, adigoo cid kale la ballansan amba hawl kale ay ku qorshaysan tahay. dabcan qofkii ma odhan kartid amba kuma arki karo amba maxaad iga soo doontay amba adaabka ka bax. hadda dhaqankeena ma waafaqsanaa. marka waa inaad ballan kale aad u samayso, amba waa inaad toddobaadkii maalin amba labaad u samayso dadweynaha inaad aragto. dadweyne badan waxay ka cawdeen wasiirka lama arki karo. waa run, sida loo arkaa runtii way adag tahay, waayo hawshiisa runtii iska badan. intaa wasiirku shir buu ku jiraa, amba mid shaqaalaha, amba mid dadweynaha, amba mid hay-ado kalaa, amba mid wasaarada kalaa, iska hawl badan yahay runtii. laakiin wasiirka laftigiisa wuxuu runtii shaqadiisa ku tayeyn karaa hadduu qorsheeyo waktigiisa. waayo waxyaabo fara badan oo waktigiisa ka lumin kara ayaa maalin walba hor imanaya ama saacad walba. xasuus qorkaaga waxaan ku qornayn hadduu ku yimaado maxaad samayn jirtay? marka waa in ballan loo sameeyo qofka oo dib loo celiyo. lama jebinayo xasuus qorka, lama odhanayo waa qof yar culus iyo si wanaagsan. dad qof ballan lahaydeen ma oran karti iska raalli ahow, dad kaloo kaa miisaan weyn baa meesha timo. si wanaagsan. waxaad ka warantaa marar badan waxa dhacda wasiiro aan iyagu xusuus qorkaa isticmaalina yimaada, deedna waxa laga yaabaa inuu shir galo, ama dadkaasi miyay noqon karaan dad shaqo wanaagsan qaranka u qabto wax soo saar lamay noqon karaan qofkaan xusuus qor lahayn?
وسدي واحد قرشيسن ما قبل كرتا haddaan ku qorshaysnayn haddaan waqtigu ku qorshaysnayn waxaa ka soo baxaya waqtiga uu tayo yeelan waayo markaan wasiir ahaan waqtigaaga wanaad qoondeyso wanaad qiimeyso wixii kaa duwaaya mataqaana dee jidkaas saad u qiimeysayna wanaad maareyso si wanaagsan dhalinyarada miyaad kula talinaysaa inay siyaasadda soo galaan runtii waan ku gubaabinayaa weliba runtii inay siyaasadda galaan imika siyaasaddeena masaaxadda siyaasadda qofka 60 jirka baa la odhanaya waa dhalinyaro amba 70 jirka marka saaxaddii siyaasadda dhalinyarada way ka maqan tahay godadkii waa laga buuxiyey mustaqbalka intaa dhalinyaradaa iska leh marka aad baan runtii ugu gubaabinayaa dhalinyaradu inay daneeyaan siyaasadda weliba sida wanaagsan ee saxee suuban ee diinteenu ina farayso inay u daneeyaan aanay si kale u danaynin qofku inaan u danaynin siyaasadda waxbaad ku heli doontaa laakiin dalkaagaad u adeegi doontaa iyo ilaahay baad ugu dhowaan doontaa labadaa waa inuu daneeyo siyaasadda wasiir aad baad u mahadsan tahay doctor Sacad Cali Shire waxa kaloo yadna aan doonayaa dhalinyarada inaan u sheego adigoo wax baranayay kontonkaa sano ummadda u shaqaynayay haddana waxaa jira in bulshada aad u shaqaynayso jaamacadda Hargeysa kala qayb aad asaaskeedii ka ahayd burco kala aad ka ahayd iyaga haddaad kelmad ka tiraahdo iyo meelo kaloo badan oo arrimo bulshada baa jiray oo adoon lacag ka qaadan inaad wax ku darayso iyagana haddaan ku noqdo shaqada laba nooc oo shaqo ayaan soo qabtay mid waa tii aan idiin sheegay waa tii aan mushaar ka qaadanayay shaqada kalaan qabtay runtii waxay shaqo bulsho amba dadweyne ayay ahayd waxaa ka mid ahayd jaamacadda Hargeysa waxaan ka mid ahaa runtii dadkii aasaasay 1998 waan ka mid ahaa warqad cad baanu soo qaadnay miiskaasaan fadhiisanay halkaasaan ka bilownay saacado badan baa naga galay runtii more than 1000 hours ka badan baan filaya inta inaa gashay marka alxamdulilah dee waa shaqo aan ilaahay ugu dhawaano subxaanahu watacaala aanan ka sugaynin abaalmarin anuu weli shilin kama qaadan jaamacadda Hargeysa 25 sanadood waan u shaqaynayay laakiin aniga waxaa ii farxada dhalinyaradiina waa laga yaabaa in badan inay jaamacadda Hargeysa amba ku jiraan amba ka soo baxeen intaas baa aniga ii farxaa xagga ilaahayna dee waxaan ka rajaynayaa abaalmarin jazaa baan ka rajaynayaa alxamdulilah rabbil caalamiin sidoo kale jaamacadda burco waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay hawl badan baa runtii tacab badan baanu gelinay bilowgeedii dhismaheedii lacag ururinteedii runtii ku guuleysanay alxamdulilah imika jaamacadda burco 2004 baan anigu ingiriis aan ka imi waxaan la kulmay guddidii horumarka ee magaalada burco oo odayaalo badnaa waxaan ku yidhi bil keliya baan haystaa lacagna ma wato laptopkaas baan haystaa wax kale ma wato waxaan doonayaa bishu markay dhammaato ee aan noqonayo inaynu jaamacaddii furno dabeedna waxaanu sameynay wixii goor aanu sameynay waxay saynka jaamacadda burco baanu soo sameynay sayna iyadaan shaqaale lahayn iyadaan xafiis lahayn kalaasya lahayn jirinba ayaan boor u sameynay way dhaalatay markaa wuxuu siduu korada waynu dhashay soo maa haddaan marka wuxuu aanay dhalanin dee kori maayo marka hadda jeer dhalinyarada waxaan kula taliyaa doonaysa matalan inay wax dhistaan gurigii oo kale waxaan ku dhaha borta marka hore dhulka raadi dhulka markaad hesho qabiyee maalinba bulkeeti saar ha sugin intaad lacag buurinad helayso ood ku dhisayso guriga oo dhan qabyada way kusoo eegaysaa maalin walba dabeedna khasab waxaa kugu ah inaad martidaa kusoo eegaysa inaad dar yeesho oo aad qabyo tirto marka runtii saas baanu jaamacadda burcana ugu aasaasnay jaamacadda berbere anigu asaasiyaasheeda kama mid ahayn laakiin muddo badan baan ka shaqaynayay laga soo bilaabo 2005 marka waa shaqooyinka bulshada ka baxsan shaqada dee aad ka qaadanayso mushaharka marka qof walba waqtigiisa saasoo kale u qaybin karaa shaqadii maxay idhahdeen dalka amba qaranka amba dee shaqadiisa aakhiro uu ugu dhowaanayo iyo shaqada dee uu ka qaadanayo mushaharka sidoo kale xagga waxbarashada inkastoo dee aan
saddexdii shahaadee ahayd tii bachelorka iyo kii masteredka tii PhD aan qaatay haddana waxbarashada halkaa kumaan deynin inta waxbaan baranayay marka waxbarashadu ma dhammaato qalinka lama jebiyo qalinku godka kula gelaya marka waa very important weliba dee waqtigan xaadirka aqoontu way isbedelaysaa xawli xooga bay isku bedelaysaa marka inaad la qabsato oo la jaan qaado ayaa aad iyo aad u muhiima marka waxaan kula talinayaa intiina aan ku jirin iskuullada laga yaabo inay shaqeeyaan amba aan weli shaqaynbaba inay waxbarashada ku dadaashaan idigoo ka faa'iidaysana teknolojiyada cusub oo maanta adoo halkan jooga ee shahaadad ka qaadan kartaa caalamka oo dhan jaamacadaha maraykanka jaamacadaha maxaa dhahdaa asia jaamacadaha afrika fursado badan baa haysta marka waxaan ka faa'iidaysta runtii fursadaha waxbarasho qalinka ha jebinina waxbarta ilaa iyo inta mataqaanaa aad nooshihiin aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa iyagana inaan dhalinyarada fursad siiyo oo aanan su-aalaha ka wada qaadan si wixii laabtooda ka guuxaya ay ku weydiin karaan